waa idin salaama saaxiibadeeda qaaliga ah ee ku xiran beejkayga Sucaada Samaara. meel walba aad joogtaan waxaa idin leeyahay xilli walba idin tahay oo wanaagsan. ugu horeen soo dhawaada beejka, follow gareeya haddaan ugu cusub tahay, share garee muuqaalkan intaadan dhammaysan ka hor, commentina kasoo dhiibo markaa muuqaalka dhammaysato. aada u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga. horta waxaa rabaa maanta inaan ka hadlo sidaa ka aragteen titleka. Arsenal sanadkan ma u qalantaa inay ku guuleysato horyaalka Premier League wadankaas Ingiriiska? Arsenal sanadkan foomka ay ku socoto ama sida ay ku socoto, haddii ay ku sii socoto way u qalantaa inay ku guuleysato horyaalka Premier League wadanka Ingiriiska, sababtoo ah waa naadi ilaa heerkan soo dadaalay. inkastoo kulanka ugu dambeeyay hadda maxaan ku rahdaa sanadka cusub ay barbaro gashay, haddana waa naadi weli isku xiran, dhan walba ka diyaarsan. maxaan ku rahdaa macalin Mikel Arteta waxa uu doonayaa abaarta ka jirta kooxda kubadda cagta Arsenal ee ku aadaneed inay dabcan qaado horyaalka Premier League wax badan inuu taariikh u sameeyo, uu la qaado, maadaama ciyaaryahankoodii hore uu yahay, haddana uu yahay macalinkooda. soo taariikh badan ay u sameynaysaa Arteta inuu dabcan koobkan la qaado. marka loo fiiriyo taageerayaasha Arsenalna adduunka oo dhan bay ka dabaaldegayaan. waa aragteen taageerayaasha Kenya isugu soo baxay finaanadaha maxaan ku rahdaa Arsenal wato ee duceynaya, ducey qabteen aa la dhayaa. mawlac ku yaalo Kenya inay iskugu tageen wax akhriyaan aa la dhahaa si Arsenal ay ugu guuleysato horyaalka Premier League. sidoo kale taageerayaasha Soomaaliya hadda waxay kugu salaamayaan sanadkan waa sanadkeeni, anaga horyaalka qaadeen oo kale. Arsenal taatikadan soo socota haddii ay sameyso way ku guuleysanaysaa Premier League wadanka Ingiriiska. sida hadda u diyaarsan tahay haddii ay isku sii diyaariso, micnaheedu haddii ay garaacdo Tottenham ay gurigeeda booqanayso kulanka soo socdo toddobaadka soo socda horyaalka Premier League. sidoo kale Manchester City haddii ay ka badiso, Man City-ne kulanka Manchester United ee axadda, waa aan rahday kulanka sabdida, haddii Manchester United ay Manchester City garaacdo, Arsenal waxay u noqonaysaa fursad iyaduna ay garaacdo kooxda kubadda cagta ee Tottenham. sidoo kale Manchester is arki doonaan Arsenal haddii ay garaacdo laba Manchester iyo Tottenham. Arsenal koobka horyaalka Premier League wadanka Ingiriiska way qaadaysaa. marka su-aasha waxa weeyaan, ma ka badinaysaa Tottenham Arsenal, mase ka badi doontaa kooxda Manchester City, mase ka badi doontaa kooxda Manchester United? haddii ay saddexdaas kooxood Arsenal garaacdo waxay noqonaysaa ku guuleystaha horyaalka Premier League wadankaas Ingiriiska. waa haddii ay qaado waayo saddexdaas koob, waa saddexdaas koox ay garaacdo koobka way qaadaysaa. weliba sanadkan koobka Premier League wuxuu u dhigmaa koobab waaweyn maadaama Arsenal ay qaadayso. waa fahanteen oo maleena. marka Arsenal taageerayaasheedana sidoo kale waa raaligelinaa daraad. waxaa dhahay Chelsea sixreen, dad badan ay ugu kacay waxay dhaheen Samaar maxaa ka wadaa, Samaar maxaa noo dacaydeene. soo waxaa noo balana iga raali noqda, waa kaftan, sportskana kaftan uu ka samaysan yahay. waan isxifaalinaynaa Tottenham inaa garaacdaan, Manchester City garaacdaan, United-ka garaacdaan, koobka anaana idin keenayo. Emirates wuu kusoo deganaa koobka. aad baa u mahadsantihiin taageerayaasha Arsenal. muuqaalkan idinka iskale, sheerta kala daala. bye.